science-ka laba kuliyadood oo isku dhow. ardayda class of 2020 oo maanta munaasabadooda qalin jabinta ay aad bay u mahadsan yihiin. waxayna soo gaadhay kulliyadii afraad Faculty of Engineering and Computer Technology. Faculty of Engineering and Computer Technology oo hormuudkooda uu la socdo ayaa ina soo gaari doona iyana maanta iyo habsami socodka guud ahaan ee jaamacadda heer walba oo ay yihiin وياي مركلة مسؤولين مركلة مسؤولين إسرائيل وطيبة بدنيا كلها بنادر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مسؤولين هيئة الكلكوان إهاب فدرال إهاب كوحدة أبدان بيدا كوحدة أبدان دبالدقنو قلندرية شمعانتا قلاس 2020 waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee aad u soo ajiibteen casuumaadan idinkoo tixgelinayo qiimaha ay leedahay waxbarashada martidoo la sooraa si
gobol suuban loo dhigo Soomaalida taqaanee annagana sidoo kale SIU Soomaalinimadii si weyn علمنا وحرشان وقيمة مالمان حمد باشادي ودبا دقيني فرحات حفلده أرضين الدكسينة سراء فوفوره قبسنايين هذا رواق وحنوشي دبا دقينا أرضين جامعة الأمي ومصر هي نصي السعودة مركب ومدينو كنتي وحاضيه كرا نلفي عمي مريسا أقوات مدام سان بدلاليش حالي هذا هل السؤال الله فرق معنا يعني وهاي حفصة الله حرق markay salaad inoo bataan jaamacadaha inoo bataan ummadeena tarbiyadeeda iyo wanaageeda ayaa badanaya waa meesha ummaduhu ay ku hormaraan casriga cusub ee aynu noolnahay teknolojiyada casriga ah dagaalkii labada adduunka markii uu dhammaaday oo dadkii aadka u baabay waxaa ka mid ah Jabaanka oo nuclear lagu dhuftay haddana maanta meesha ay marayaan wada deysaan waxayna ku mareen wax kala baahane cilmi iyo aqoon ay u soo jeesteen halkaas lagu hormaraa marka ummadeena Soomaaliyeedna burburka kadib waxaan rabnaa si aan caalamka u tiigsano in aan waxbarashada ku dadaalno Faculty of Health Science waxaa ka qalin jebinaya ilaa 4 department oo kala ah General Nursing, Medical Laboratory Sciences, Public Health, Nursing and Midwifery. Kulliyadda Medicine and Surgery waxaa ka qalin jebinaya programka Medicine and Surgery ama Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery MBBS. Kulliyadda Faculty of Agricultural Science waxaa ka qalin jebinaya programka loo yaqaan Agricultural Science. Faculty of Sharia and Law waxaa ka qalin jebinaya programka loo yaqaan Sharia and Law. Takhasus walba iyo tirada ardayda ka qalin jebinaysa waxay noqon doonaan sida tan Department of Accounting and Finance waxaa ka qalin jebinaya 15 rag ah iyo 7 dumar ah wadarta guud ee Accounting and Finance waxay noqonaysaa 22 arday. Programka Business Administration waxaa ka qalin jebinaya 29 rag ah iyo 6 dumar ah wadarta guud ee ka qalin jebinaysana waxay yihiin 35 arday. Programka Banking and Finance oo emergency ah ay ku soo siyaadeen inaan soo gudbiyo oo soo dhaweeyo adiga kalbadeydii way dambayn doontaa insha Allah taala dadka caasimada bulshada ku nool gobolka Banaadir dayac meel kasta ah ayaan leenahay dalkeena waa dal burburay ka soo kabanaya burbur duruufo adag wajahaya wadooyinkeena way burbureen waad ogtihiin magaalada caasimada gobolada kalena leesba weydiin maayo sida xaalkooda uu yahay inkastoo ayagu ay istaamaan meelo badan oo ka mid ah meelaha muhiimka ah waxaa noo fadhiya biyo daca ama biyo wasaqa ayaa fadhiya wadooyinka way burbursan yihiin qashinku meel walba u yaallaa ciyaalkeennii waa kuwa liido iyo meelihii dalxiiska iyo dadka wanaagsan imaan lahaayeen waxyaabaha aan wanaagsanayn يعني كسمينايا وحن سميني تدعو لله وصومالية أو أهل البلد أيام أدرني سيأتت هو وعي جريان وحيابها تقنى له حكم سيوعي وعي جريان ليلو إيو مالها كل شيء يسوي مالان وحن سيني جاديد أم بلا بايرة أو سماعة لسيكمل والله مغلق وحن كلها عن سميني biyaha waraha ay biyuhu fariistaan oo wadooyinka in xilliyada roobka ay bilaabadogteen ayadana dadaal badan ayaan ka wadnaa waxaan rajaynaynaa in la gaaro xilli dhow inaan biyo meel noo fadhiya aan la arag qashin meel yaalla magaalada ka midana aan la arag wadda burbursanna aan la arag waa hadafkeena waxaa loo baahan yahay marka qof iyo qolo kooban wax ma qaban karee bulsho hanuunsan oo iskaashata ayaa wax qaban karta haddaynan garabkeeda ayna soo istaagina inta aan suuro gelin karno oo horumar ah waa yarta walaalayaal mudanaale iyo marwooyin aan ka shaqayno teenna gaarka ah iyo tan guud si isla mid ah
gaar ahaan aan horumarino midda guud marka ayay saami karaysaa keena gaarka ah. waxaad ogtihiin horumarinta bulshada waxbarashadii waa ka soo sheekaynay oo waa idinka arkaya natiijadii sida ay noqotay secondary-ga ama dugsiga sare ee shalay la shaaciyey. waxaa sidoo kale aan uga liidannaa xagga caafimaadka. waad ogtihiin daryeelka caafimaadka ee bulshadeennu heerka uu marayo waad ogtihiin. waxaan dadaal dheer ugu jirnaa inaan gacanteenna ku maamulno yacni caafimaadka sida aan dadaal dheer ugu jirno inaan waxbarashada dugsiyada hoose dhexe sare inaan gacanta ku dhigno. waxaan rabnaa inaan ka xurayno ardadeenna ubadkeenna inaan ka xurayno taabuugta iyo tigtooka. laakiin waxaad ogtihiin hadduu yidhaha aniga lacagtayda la baxayaa sidaa darteed ma dhici karo hadduu yidhaahdo waa inaanan dhicin. hadduu yidhaahdo amar ku taagleeyo duruufo kale oo khaasuna ay iska jiraan duruufo badan ay jiraan waxaa garanaysaa waxa ay keeni karto oo ah natiijada hadda muuqata. meesha aan u soconno marka waxay tahay tayo aqooneed iyo tacliil meel sare gaarta iyo bulshadeenna oo saxadeeda ama caafimaadkeedu oo dhammaystiray lagu kalsoonaan karo. inta magaalada annaga aan ku noolnahay ee caasimadda Soomaaliya ah ay barakacyaal loo degan yihiin dadkeennii ah ee gaajoon ee aan nadaafad daran ee yacni aan tacliin lahayn ogaaba waxbarashadeennu waa qabyo daafaha magaalada waa daadsan yihiin. dadkaas ayaa loo baahan yahay in kow nolol ay helaan, 2 ay nadaafad helaan, 3 ay tacliin helaan, 4 dibudejin loo sameeyo dadkii markii horumarintii reer miyiga ay waayeen oo abaaro ay ku dhaceen oo colaado ay ku dhaceen oo cudurro ay ku dhaceen oo cidii daryeelaysa aanay jirin magaalooyinkay soo galeen waa kuwa barakacyaasha kuwa ma ajnabi miya dad meel kale looga yimid miya mise waa annaga dadkeen waa dadkeennii waxaa nalaga rabaa inaan iskaashano dadkaas aan daryeelno waxbarashadooda xaqiijino caafimaadkooda xaqiijino noloshoodii iyo inay wax cunaan aan xaqiijino kadibna aan dibudejin u samayno. waxyaabaha nalaga rabaa maaha waxyar dadkiinaan waxbartay waxa laydinka sugayaay ma aha inaad waxbarataan oo shahaadaan haysaa keliya aad tidhaahdaan. waxaa rabaa shahaadada iyo tacliinta ee dhibkii la soo maray inay dheefi loo beddesho horumar loo beddelo muuqda. waana fiicannahay biidni illaahi tacaalaa sanawaad ka hor hoolkaanba lama haysan. dadaalada la sameeyuu ka mid yahay waana sii wadaynaa biidni illaah. balse waxaad ogaatiin bulshadu haddayan isku duubnayn inaan wax badan la qaban karayn oo caqabado badan ay jiri doonaan. intaasaan rabaa inaan hadalkayga ku ganaanado.